السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان أصحابتك حرن جنال كين وهلياء ومدى كسود وتحنيهني لحي تونات يكون هبين يهبين هدي أدنا قحسب تسودو وسبسكرايب كتابو جنباليل كان فرو سي يكوسو غاران وحول بان صودك ندر بديبا هدي أتورين الجوكتين لايك سار ولو ذاك أصحاب تادا كنسو قر فكر كافي عن قيبته سي كومنتي دا كان ميد نقو أصحابته وهلياء ومدى سي أن سي وجرا سوه لسانو إذن كالله إمين كان داوشة وعن habeenkii xigay markii la gaaray Shahrazad waxay hadalka ku bilowday khaliifkii markuu hadalkaasi maqlay wuxuu ku dhaartay inuusan ninkaasi dili doonin balse adoonka oo soo qaban doono oo uu dili doono waxa uu jileecsaday dhanka Jacfar waxa uuna ku yiri adoonkaasi ii keen hadii aadan ii keenin ilaahan ku dhaartay adiga ayaan qoorta ka jari doonaa Jacfar intuu gurigiisa tagay ayuu mar kale oohin qabsaday isaga oo leh intee ka keena adoonkan oo arag xataa aanan garanaynin والله حتى إن أنا نفرد قاجنين أرين كيجنا وحنو ديوانا يا إلهي أو مركي هور إبد بالي إمين كنا إساقون أيا إبد بالين دوني جعفر وحاو إسكفر يستقري يسي مركي أي كسوريت وقتي لوقب تسدح مع الموت أيا أيمد عيدن كي أمير كي مؤمنين توحى أن كوي رادين أمير كي مؤمنين تأيا كوي ريو أسيق أولي با آت وحناخسن مركو مقل جعفر هذا الكي عيدن كأيوسي قوستي وحونا أجي سدن كي قوس كيسا إساق أو سقوتينيا قوس كيسنا وحا كوجر تقور يرو وجعلا هب انتو سي ايو اسكو سي دووي لكن waxa uu dareemay wax kuusan oo jeebkeeda ku jira kolkaas ayuu weydiiyay oo ku yiri gabadheedii waa maxay wax jeebkaaga ku jira waxa uu jawaabtay aabo waa tufaax oo ii keenay adoonkeeni reexaan waxaana kaga iibsaday 2 diinaar si aan ugu ciyaaro Jacfar markuu hadalkaasi maqlay ayuu aad u farxay asigoo alla u mahad celiyay farxadna wuu la ooyay waxa uu u wacay adoonkiisa waxaan u weydiiyay xagee ka keentay tufaaxan waxa uu isna yiri sayidkeygiiyo 5 maalmood hadda ka hor ayaa tufaaxan waxaan ka qaaday anigoo jid maray wiil yar oo jidka ku ciyaaraya marka aan weydiiyay halka uu ka keenay tufaaxan wax uuna igu jawaabay hooyaday xanuunsanaysa ayaa aabahay waxa basra uu keenay 3 xabo tufaax ah aniguna midkan ayaan soo qaatay markaas ayaan wiilka inta aan garaacay ayaan tufaaxii ka soo xoogay markuu Jacfar hadalkaasi maqlay ayuu amar ku bixiyay in la xiro adoonka loona geeyo amiirka muuminiinta ee Haarun Rashid sidii ayaa loo geeyay adoonkii oo ku badbaaday wasiirkii Jacfar Haarun Rashid ayaa la yaabay qisadan meesha ka dhacday wuxuuna amray in diiwaanka la geliyo qisadan cajiibka badan si ay facad dambe ay ugu cibra qaataan Jacfar ayaa ku yiri khaliifkii hadii aad maqli lahayd qisadii ninkii weershaha ahaa ama ashqaraha lahaa kawatolaha yahuudiga kristinka iyo muslimka ka dhex dhacday sheekadan lama yaabteen kolkaas ayuu Haarun Rashid yiri bal noo sheekada ka yaabka badan mid aan hadla yaabanahay wasiir Jacfar ayaa ku yiri wallahi inaanan ka sheekeyneen ilaa aad adoonkeyga ka cafiso oo aad dhigiisa ii hibayso khaliifkii ayaa ku yiri hadii aad qisada noo soo wado ay ka yaab badan tahay midaan hadla yaabanahay waan ku hibeeyay dhigiisa bal ii sheeg qisada Jacfar wuxuu hadalkiisa ku bilaabay waxaad ogaataa khaliifkii muuminiinto in waa hore magaalo Jeenah ku taalo oo ku noolaa nin dhartolo ah wuxuuna ahaa nin iska shaqeysta oo furfuran mararka qaarna isaga iyo xaaskiisa ayaa tamashleen isku raaci jiray maalin maalmaha kamid ah ayuu tamashle ka yimid ay jidka isku arkeen nin weersho ah oo qamri cabsan kaasoo hadaad aragiisa aragto aad la qoslayso حتى قفك حناقسن هادو وجهيسا أركو قصل لدعايي كدب أي سلامين حوغا أي لشيكيستين waxa ayna jeclaysteen in haweenkaasi ay la joogo ay gurigoodu ku casuumaan oo nalana seexdo sidii ay ninkii ugu sheegeen wuuna ka oglaaday way is soo raaceen oo intay jidka ku soo jireen ay hore waxay u soo iibsadeen kaluun si ay haweenkaasi u cunaan markii ay xaafadii tageen ay kaluunkii soo qaateen ayagoo cunayo ayaa gabadhii uu qabay ninkii dhartolaha ahaa ayaa soo qabatay cad kaluun ah oo weyn oo is haystay ay afka u gelisay ninkii miskiinka ahaa oo weershaha ahaa ama ashkaraha lahaa iyada oo ku leh hal mar afka wada gasho oo cun maadaama oo diif iyo gaajo ay ka muuqatay wayna ku dirqiday iyada oo sug weyday inta uu ka calaanjinayo ninkii miskiinka ahaa nin wadkiisa gala ayuu ahaa afii kaluunka ayaa dhunta u istaagay kadibna halkii ayuu ku dhintay markii halkaasi sheekadii marisay ay Shahrazad dareentay in suwixii la gaaray hadalkii u banaanaan waa ay joojiday habeenkii xiga ayay waxay tiri boqorow waxa ay soo gaaray markii weershii dhintay uu yaabay harqaanlihii isaga oo yiri لا حول ولا قوة إلا بالله مسكين كان إنه قعمهين كل انت أي أقرنيت محانو سمينا إمن كتلو كل كاس أي قوادي تري سوق وقاس أو نينك كدوب سونا حنبار
waynu qaadaynaa haddii ay dadkana weydiiyaan waxaynu ku oranaynaa wiilkan xanuunsanaya ayaan dhakhtar u wadnaa si ay dadka noo dareemin sidii ayayna yeeleen markii ay imaadeen gurigii dhakhtarka ay albaabkii gargaraaceen waxaana ka furtay gawar yar oo dhakhtarka la joogtay waxayna ku yiraahdeen dhakhtarka haddaad noogu wacdo diinaarkan ayaan ku siinaynaa waayaha ayay tidhi kolkaas ayay kor fuushay ninkii iyo gabadhiina intii meydkii meesha dhigeen ayay ka carareen gabadhii yareed markii dhakhtarkii u tagtay oo nin yahuudi ahaa ayay waxay ku tiri nin iyo gabar oo wada qof bukaan ah ayaa albaabka ku taagan na rabaan inaad u soo baxdo dhakhtarkii ayaana soo degay hase yeeshee meeshii oo mugdi ahayd oo xilligiina habeen ahaa awgeed ayuu ku dul dhacay meydkii kuna kor kufay isagoo weliba sanbabka kaga istaagay dhakhtarkii ayaa aad iskugu naxay wuxuuna u qaatay in bukaankii uu sanbabka kaga istaagay uuna dhintay kolkaas ayuu yidhi yaa casiiz yaa haaruun yaa yuushac ibnu nuun ninkii miskiinka ahaa waan diliye talow maxaan sameeyaa isagana wuxuu go'aansaday inuu ku tuuro guri nin muslim ah oo ku jira oo ay deris ahaayeen ninka muslimka ah oo ay yahuudiga ay deriska ahaayeen waxaa isagana nafta u keenay oo uu qaatibilaahi ka taagnaa tuug haween kasta xadda oo u soo dhacda markay wax soo dhaceen oo uu jugtii maqlay ayuu mooday tuug derbiga ka soo booday inuu yahay wuu soo baxay meeshii ayuu yimid mise waa ninkii weershaha ahaa ama ashkaraha lahaa oo meyd ah oo meesha qotoma isagoo aan ogeyn inuu meyd yahay oo u malaynayay inuu tuug soo dhacay ayuu budkii uu watay madax kaga dhuftay kadibna wuxuu arkay ninkii oo meyd ah wuxuuna u maleeyay inuu asiga dilay markaas ayuu isna yidhi laa xawla walaa quwata illaa billah ilaahay ha lacnado alaabtan yar oo ninkan dartiisa u dilay wejigii ninka ayuu eegay mise waa nin oo indhihiisa isku jeedaan wuxuu niyada iska yidhi inaad weersho oo keliya aad tahay makuu filnaa weyday markaasaad weli tuugnimo kusii darsatay kadibna isna meydkii ayuu soo qaaday wuxuuna ag keenay nin Christian oo dukaanla ahaa kaasoo dukaankiisa suuqa ku yaalay meeshii ayuuna u qotmiyey sida qof taagan oo kale ninkii Christianka ahaa oo qamri ka soo dherga ayaa dukaankii ka soo baxay wuxuuna arkay ninkan oo meesha taagan isaga oo u qaatay inuu doonayo inuu dhaco horena dhowr jeer ayaa loo dhacay waxaana hayay ciil daran kadib ninkii meesha taagnaa ayuu feer ilaad kula dul dhacay sidoo feer ilaad ugu waraabinaya ayaa waxaa ku soo baxay qaar ka mid ah waardiyaashii suuqa kuwaas oo ninkii Christianka ah ka qabtay ninkii uu dilayay ninkii ayay eegeen mise waaba meyd kadib ninkii Christianka ahaa ayay xireen waxa ayna geeyeen gurigii ninkii maamulayay magaalada ayadoo ninkii Christianka ah la yaaban yahay sidoo nin feer ugu dhiman karo markii barasaabka magaalada loo geeyay ayuu ninkii Christianka ah amar ku bixiyay in qoorta laga gooyo waxaana la geeyay meesha dadka qoorta looga gooyo kadib qoorgooyihii ayaa isdiyaariyay isaga oo qarka ka saaray inuu qoorta ka gooyo ayaa meeshii waxa yimid ninkii muslimka ah oo ordayo kaas oo leh hadilina ninkan wax ma uusan dilinin ee aniga dila anaa ninkan dilay kolkaas ayuu barasaabkii yaabo oo yidhi oo sidaan ku dhacday waxa uuna kaga warmay inuu ninkan xalay u soo dhacay oo bud madax kaga dhuftay isaga oo meed ah soo qaaday oo ninkan dukaankiisa soo dul istaajiyay marka aniga ayaa ninkan dilay ee aniga halii dilo ayuu warkiisa ku soo koobay kolkaas ayuu barasaabkii amar ku bixiyay in ninkii muslimka ahaa la dilo isagana markii tiirka la geeyay oo qoorta laga gooy rabay ayaa waxa yimid asigoo ordayo ninkii yahuudiga ah ayaa wuxuu yidhi war ninkan hadilina wax ma uusan dilin aniga ayaa dilay aniga halii dilo kolkaas ayaa isna la weydiiyay oo sidee tani ku dhacday wuxuu ku jawaabay aniga ninkan asigoo bukaan ah ayuu xalay ii yimid hase yeeshee maadaama ay meesha mugdi ahayd anigoo aanan arkaynin ayaa sanbabka kaga istaagay sidaas ayuuna ku dhintay kadib ninkan miskiinka ah oo jaarkayga ah ayaa gurigiisa ku soo tuuray asiga oo meyd ah marka ninka aniga dilay aniga halii dilo kolkaas ayuu barasaabkii amar ku bixiyay in ninka muslimka ah xariga laga furo oo yahuudiga lagu xiro lana dilo iyada oo yahuudigii la dil raw ayaa waxa yimid harqaalihii oo orday wuxuuna yidhi war ninka miskiinka ah dilana wax muusan dilin ee aniga ayaa dilay waxuuna ka sheekayay sidii wax u dhaceen markaas ayaa harqaalihii lagu bedelay ninkii yahuudiga ahaa taasoo aad uga careysiisay ninkii qoorgooyaha ahaa asiga oo sugi kari waayay qof uu qoorta ka gooyo dhanka kale ninkan weershaha ahaa ama ashkaraha lahaa wax uu ka mid ahaa dadkii suldaanka la caawin jiray ee ka qoslin jiray laakiin maalintii uu dhimanayay intuu qamri ka soo dhergay ayuu qasrigii ka soo tagay habeenkiina wuu dhaxay taasoo keentay in suldaankii is weydiiyo xaguu ka dhacay waxaana loo sheegay suldaankii inuu ninkii dhintay oona dilkiisa loo haayo 4 nin kolkaas ayuu suldaankii yidhi barasaabka haloo tago hala ii keeno dhammaan inta dilkiisa loo haysto iyadoo ninkii harqaanlaha ahaa oo tiirkii saaran yahay ayaa waxaa yimid ninkii suldaanka soo diray asigoo ordayo isla markaana leh suldaanka ayaa dhammaantiina idin yeerayo taas oo markale ka sii careysiisay qoorgooyihii oo tiirkiisa lagu soo xiray 4 nin balse qofna qoorta uusan ka goynin ay suldaanka u yimaadeen oo ay ugu sheekeeyeen sidii wax u dhaceen ayuu la yaabay suldaanka arrinka iyo sidii ay macquul ku noqotay in 4 nin ay hal nin iska wada dawadilaan iyagoo aanan fahmin waxaa hadlay ninkii Christianka ahaa oo isna yidhi haddii aan kaga sheekeeyo qiso aan had ka hor aan arkay tani waxba ma noqonayso kolkaas ayuu suldaanka yidhi oo maxay ahayd qisadaas ninkii Christianka ahaa ayaa hadalkiisa sidaan ku bilaabay waxaad ogaataa boqorow aniga inaan ka soo jeedo qibdiyiintii Masar ku nool
oo aabbahay waa reer Masar wuxuuna ahaan jiray dilaal hase yeeshee wuu geeriyooday anigana markuu dhintay ayaan booskiisa galay oo hawshii meeshii ka sii waday waxaana noqday dilaal kale maalin maalmaha ka mid ah anigoo suuqa jooga ayaa waxaa suuqa igu yimid wiil aad u qurux badan wuxuuna watay alaab uu iibinayay taasoo ila heshiiyay inaan alaabta soo iibiyo isla markaasna faa'iidada qaybsano alaabtii ayaan maalintii dhan gadayay waxaana soo xareeyay faa'iido aad u badan laakiin waxaa soo haray qayb alaabta ka mid ah waxaana la gaaray waqtigii oo ninkan deegaankiisa ku laaban lahaa wuxuu markaa ila balmay inaan badeecadii aan gado isagana uu 1,000 diinaar qaato inta soo hartayna aan anigu qaato sidii ayaan yeelay muddo badan ayuu maqnaa ilaa uu markii dambe oo u yimid wuxuuna i weydiiyey lacagtiisii kolkaas ayaan ku idhi waan ku hayaa wuxuu ugu yidhi yahay waan u soo laabanayaaye markii ay bil ka soo wareegatay ay u soo laabtay wuxuuna i weydiiyey 1,000 diinaar inaan u hayo ayaan u sheegay kolkaas ayuu mar kale u yidhi yahay waan u soo laabanayaaye wuxuu sidaasi xaalka ahaadaba markii ay dhowr bil ay ka soo wareegatay ayaan lacagtii maalgashi ku sameeyay waxaana ka faa'iiday lacag badan waxaana go'aansaday inaan markaa wiilka marti qaado maadaama uu qof fiican yahay sidoo kalena aan lacagtiisa wax badan ka faa'iiday maalintii dambe oo i yimid ayaan ku yidhi maanta aniga ayaa ii casuuman tahay laakiin wuxuu ugu yidhi hal shardi ayaan wataa taasoo ah in lacagta martiqaadka aad ka bixisid lacagta aad ii haysay waana ka ogolaaday kadib qadadii ayaan diyaariyay waana soo fadhiisanay saan u cunno laakiin waxaan arkay asiga oo bidaxda wax ku cunayo taasoo la yaab ila naqatay markii cuntadii uu dhameeyay oo uu soo farxashay ayaan weydiiyay oo ku yiri sayidi gacanta midig maxaa ku dhacay oo aad cuntada ugu cuni weyday manib baa jiro waxaana idinka ilaaway inaan idin sheego in wiilka gacantiisa midig oo jaabka kula jira uusan hal marna uusan soo bixin uusan isticmaalin wiilkii hadalkii markii uu maqlay ayuu gacantiisa jaabka ka soo saaray mise waaba go'an tahay aad baan ugu yaabay kolkaas ayuu ugu yiri waxba hala yaabin waayo gacantan qaabka ay u go'day ayaa ka sii yaab badan waxaan ku yiri maxaa kaga dhacay bal iga waran wuxuu hadalkiisa ku bilaabay waxaad ogaataa inaan ka soo jeedo magaalada Baghdad waalidkayna oo halkaas degnaa waxaanan ahay nin ganacsato ah aniga markasta waxaa hadalkii uu soo gaari jireen in magaalada Masar ay tahay dhul ganacsiga aad ugu fiican tahay waxaana had iyo jeer aan ku taami jiray in dhulka Masar aan hal mar tago aan badeecadeeda geeyo maalintii dambe ayaan safar dheer soo galay aniga oo wata badeecad aad u badan waxaan ugu horeeyay dharka noocyadiisa kala duwan waxaana soo gaaray dhulkii Masar waxaana halkaas ku iibiyay badeecadeeda waxaana halkaas ku bartay ganacsato badan oo ka mid yahay nin la dhihi jiray Badruddin wuxuuna ahaa nin dharka ka ganacsada maalin maalmaha ka mid ah anigoo asiga la fadhiyo sheekana noo socota ayaa dukaankiisa gabar haddii aad quruxdeeda aragto aad yaabayso waxay ahayd gabar u labisan sida amiiradaha wejigeeda ma uusan ahayn mid la iska caawin karo oo qalbigii arka si fudud ayuu ku jeclaanayay waxaa ka soo baxaya caraf iyo udug quruxda ka qaadaysa waxaan niyada iska iri xuur lacayntan talow xagee ka timid waxayna la hadashay Badruddin waxayna fiirisay dharkii meeshii yaalay oo ay kala baxday intii ay ka heshay intaasna anigu waxaan ahay maqan jooge oo iyada ayaan ku maqanahay kadib ayay Badruddin ku tiri ka waran haddii aan dharkan qaato oo aan lacagtiisa gadaal kaga keeno balse Badruddin waxa uu jawaabay suurtagal ma ahan maanto waayo lacagta ayaan muxtaaj u ahay markaas ayay ku tiri war hooge aniga waxa caadi ah inaan dukaankan badeeco ka qaato aan lacagtiisana dib kaga keeno maxaa kugu dhacay balse wuu ka diiday kadib intay ku xanaaqday ayay maryihii wajiga kaga tuurtay ayna iska baxday markay dhaqaaqday ayaan u maleeyay in ruuxdeeda ay raacday intaan ka daba kacay ayaan ku yiri abaayo hal mar eegmadaada igu soo daqeyso talaabadaana dib u soo celi wayna isoo eegtay ayadoo dhoola cadeynaysa ayna ugu tiri dartaa ayaan u soo laabtay intaan Badruddin u jeestay ayaan ku yiri badeecadan lacagteedu waa imisa kolkaas ayuu ugu yiri waa 1,100 dirham waxaan ku yiri waa diyaar waliba waxaan ku raacinayaa 100 dirham oo dheeraad ah kolkaas ayuu warqadii kaashiirka ahayd ii qoray oo aan gacanteeda ku saxiixay waxaana ka soo tagay gabadhii anoo ku yiri hoo qaado alaabtan haddii aad rabto inaad lacag ii soo celiso ahlan wa sahlan haddii kalena martiqaad iyo hadiyad u qaado kolkaas ay ii mahad celisay wayna baxday markay tagtay ayaan Badruddin ka wareystay cid ay tahay iyo wax uu xog ka haayo wuxuuna ugu yiri gabadhan waa gabar hanti leh waana amiirad oo aabaheeda dhintay wuxuuna ugu tagay hanti aad u fara badan habeennimadii ayaan ku soo noqday hooyii aan u hooyan jiray anigoo qalbigaygu ku mashquulsan yahay gabadhii habeenkaas wax ma aanan cunin hurdana waan iska waayay waxa kaliya oo aan ka fikirayna waxa uu ahaa gabadhii quruxda badneed oo aan maanta arkay waagii markuu bariyay ayaan quraacday oo aan soo libistay ayaan hore ka soo aaday dukaankii saaxiibkayga ee Badruddin aniga oo niyada iska leh waa intaas oo mar kale ee gabadha ku aragtaa kadib xoogaa markii aan dukaankii joogay ayay timid ayadoo libiskii shalay mid ka qurux badan ayadoo wada
wadata sidii dayaxana u hilaacaysa waxaana la socotay gabar da'yar oo adoon ahayd way fariisatay wayna islaantay iyadoo aan Badruddin salaamin waxayna cod fasiixa igu tiri igu soo dawdir qof aan kugu soo dhiibay lacagtaadii waxaan isku dayay inaan ku dhaho iska dhaaf laakiin way iga diiday kadibna cabaar ayay ii sheekaysay markii bixrabta ayaan ku yidhi ma ku sii dhaweeyaa iyadana hore ayay iga fahantay kadibna way kacday kolkaas ayaan sii dhaweeyay intaan jidka ku jirna ayay waxay igu tiri waxaan rabaa inaan kuu sheego inaad isoo jiidato oo qalbigayga dhankaa u janjeero markii aan ku arkayna ilaa iyo hadda hurda ma aysan iga soo dhicin cuntana hadalkeeda badaa waxaan go'aansaday inaan warkan kula wadaago sidee kula muuqataa inta ay neef iga soo foqad ayaan ku yidhi labalaab waxa aad dhankayga ka dareemaysid ayaan dhankayga ka dareemayaa waxay ugu jawaabtay hadday sidaa tahay ka waran haddii aan kula soo dego balse waxaan u sheegay inaan halkan qariib iyo musaafir aan ku ahay gurin aan ku lahayn waxaana u sheegay maadaama ayada ay deegaan ay ku tahay inaan ayada hooyadeeda u soo wareego kolkaas ayay igu tiri waa si wanaagsane habeen dambu iska keenkeen waxayna ii tilmaamtay qasriga ay degnayd aad ayaan u farxay haweenka waxaana seexday aniga oo faraxsan subaxii markii la gaaray ayaan qabiisay waxaana soo xirtay dharkayga kuwii ugu fiicnaa si heer sare ahna waan u soo libistay anigoona is soo carfiyey kadib waxaan jaabkayga ku soo ritay lacag dhan 50 diinaar waana soo baxay ilaa aan ka imid qasrigeedii waxaana albaabka iga furay laba gabdhood oo yaryar iyo laba oo xoogaa ka waaweyn oo aad dayax moodo waxayna igu yidhaahdeen soo gal mudane sayidadeedii way ku sugaysaaye xalay dhan ma aysan adigaanay ka fikiraysay kolkaas ayaan qasrigii galay waxa uu ahaa hool 7 albaab oo wareeg oo shabaq ah ka samaysan wuxuu ku hareereysnaa beerta qasriga beertana waxa ka baxay nooc kasta oo miro ah iyada oo wabigana dhex marayay dhanka kale qasriga saqafkiisa wuxuu ka samaysnaa dahab dhulkan waxa lagu gogolay roog aad u qurux badan halka darbiyada lagu xardhay daayo xariir laga sameeyay markii aan dhex galay ayaan fariistay markii halkaas ay maraysay ee Shahrazad dareentay in subaxii la gaaray waxayna joojisay hadalkii u banaanaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan inta aan ku kulmi doono qaybta xigta waxa idinkaga tagayaa sida iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah